السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وهذا هلكني وقري جلوبال نتورك انت انا وراك اقول انك هروح مانته وتاريخ 86 وقلام احدا بشي سقالا سنتك لبدكن iyo 20 وهاك هودات ayaa waxa maanta ku shiraya mas'uuliyiinta magaalada Huudaat ayaa maanta waxay shir ay ku leeyihiin gibi ahaanba magaalada Huudaat shirkaas ayaa u daan leeyihiin gibi ahaanba inay doonayaan doorashadan wiigan soo socoto sidii wax laga yeeli lahaa doorashada awgeed ayaa waxay ku shirayaan maanta mas'uuliyiinta magaalada Huudaat halkaas ayay ku shirayaan aan wariheena joogo magaalada Huudaat ayaa warbixinta noo soo diray aasiyaate doorashada ka socota dawladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya gibi ahaanba waxa qaatay xisbiga mucaaradka oo in lifta ayaa qaatay gibi ahaanba aanan ka qayb gali doonin doorashada ka socota dawladda deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya مسؤولين تمغالada mooyaale ayaa gibi ahaanba waxa iyaga ay siiyeen dadkan hadda ka imaanaya galbeedka ama bartamaha Itoobiya qoonsigan loo yaqaano masabaqa ayaa loo goonaya muddo 3 bilood kaliya dadkan hadda ka imaanaya galbeedka ama bartamaha Itoobiya ayaa soo buux dhaafshay magaalada mooyaale ma yaqaan meel ay u socdaan iyo wixii ay doonayaan maadaama waxa la doonaya in la kala ogaado meel ay u soconayeen iyo ujeedadoodii xanfarta ayaa haddana rogaal dagaal cidilsa ayay ku soo qaaday dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gobolka City iyo gobolka Shiniile xanfarta madaxweynahoodii ayaa ku dhawaaqay gibi ahaanba in aysan aqbali doonin wada hadalada kasta ay la imaadaan dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya dagaalkan ayaa wuxuu galay maalintii saddexaad in kastoo hadda dawladda deegaanka Soomaalida oo hogaaminaya madaxweynaha Mustafa Cagjar uu ogolaaday wada hadalada inuu la galo xanfarta aasiyaate xanfarta ayaa diiday gibi ahaanba inay la galaan ama ay qaataan wada hadalada oo ay dabada ka riixayeen dawladda Itoobiya oo hogaaminaya Abiy Ahmed dawladda Abiy Ahmed ayaa loo arkaya gibi ahaan inay taakuleynayaan xanfarta sidii ay maaragtay dhulka Soomaalida ay u qabsan lahaayeen xanfartu si kasta ay u taakuleynayeen ciidamada Itoobiya ayaa hadda waxa ka socda koonfurta magaalada Gondar dagaal aad u culus ayaa ka socda gibi ahaanba dagaaladan ayaa waxa ay galeen maalintii afraad waxa la yaabay Itoobiya waxa lagu arkay hub aanan wiligeeda lagu arkin Itoobiya inkastoo TPLF ay soo bandhigeen adana ayagana hub ka sii casraysan hubkii ay soo bandhigeen ciidamada Itoobiya hadda wax la biyeelaya ma jirto dhinac walbaba waxa soo gaaray khasaare aad u culus inkastoo ay bartilmaameedyadu ay yihiin shacabka muwaadiniinta ee Itoobiya ama ahmaarada meesha degan aasiyaate labada dhinacba waxay sheeganayeen guulo waaweyn inkastoo aanan jirin ilaa madax banaan oo xaqiijinaysa guulaha ay sheegtaan labada dhinacba madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gibi ahaanba wuxuu ku soo rogay cunaqabateyn dawladda Itoobiya oo hogaaminaya Abiy Ahmed aasiyaate cunaqabateyn soo rogay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wuxuu ku tilmaamay Abiy Ahmed warkaas inuu yahay war iska soo dheh ama ay iska soo yeeray maadaama asaga wadamo badan buu soo gumaaday wax weydiiyay inkastoo li dagaalamaya Joe Biden dawladdiisa argagaxiso aad u fara badan ama dawladaha fara badan ayuu ku tilmaamay inay yihiin argagaxiso oo li dagaalamaya asaga wax ka weydiiyay maadaama asagana Joe Biden nimo weydiin karo inkastoo anaga aan madax banaanaheen cid ku ahad gudbi karto intaas inaysan jirin maadaama anaga waxaan la dagaalamayna argagaxiso ayuu yiri warkii dunida oo aad maanta kala socoteen garri global network maanta waa naga intaas tani kulanteen dambe oo xilligan oo kale waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Marca